rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay qofkii laazima ee joogteeya istighfaarta ilaahay subxaanahu wa tacaala rugo walba ku haysato ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu ka saarayaa ciriir kastoo aad dareemayso aad ku jirto ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu ka saarayaa sidoo kale rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka arsaaqayaa meel uusan filaynin walaalayaal istighfaartu waxay leedahay faa'iidooyin badan faa'iidooyinka waxaa ka mid ah barakada risiqa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u barakeenaya risiqa wuxuu u waasicinayaa risiqiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu siinayaa risiq waasic ah oo xalaal ah sidoo kale qofkii joogteeya ee laazima istighfaarta ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u badinayaa tarankiisa wuxuuna siinayaa awlaad badan ilaahay subxaanahu wa tacaala aayadiis wuxuu ku leeyahay suuratu nuux wayumdidukum biamwaalin wa baniin wuxuu idin siinayaa oo idinku deeqayaa maal fara badan iyo awlaad sidoo kale walaalayaal istighfaartu waxay sababtaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala kaaga dulqaado masaa'ibta cudurrada iyo wax walba kugu soo socda in ilaahay subxaanahu wa tacaala kaaga dulqaado ilaahay subxaanahu wa tacaala aayad wuxuu ku leeyahay wamaa kaana allahu mucadibahum wahum yastaghfiruun ilaahay subxaanahu wa tacaala ma cadaabayo oo ma dhibaateynayo ayagoo yacni dembi dhaaf ilaahay subxaanahu wa tacaala ka dalbanaya asalaamu calaykum